بسم الله الرحمن الرحيم سو dhawaada dhamaan ardayda qiimaha iyo qaayaha leh waxaan ahay macallin Saciid Yuusuf Maxamed marbuul aan soo gudbiyaa muuqaalo aan isla yahay bulshada wax badan ayuu ka saacidi doonaa kanina waa mid kamid ah muuqaalada taxanaha ah aan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda dhigata dugsiga sare gaar ahaan form 4ka ee doonaysa inay wax ka ogaadaan qaabka imtixaanka uu noqonayo sanad dugsiyeedkan ama sidii uu ahaa imtixaanaadkii la qaaday sanad dugsiyeedyadii tagay waxaan markaasi qaybtan aynu kaga shaqeyn doonaa imtixaankii markaasi la qaaday sanad dugsiyeedkii 2022 sida daraadeed marka waxa waaye horay laba qaybood ayaan markaas usoo daabanay ama aynu usoo aragnay labadaas qaybna waxay ahaayeen qaybta circle-ka ama goobagelinta ah iyo sidoo kale qaybtii markaasi ka horeysay oo su'aalaha markaasi tooska lagu jawaabayo ahayd amaan dhaho ereyada markaasi meesha ku jira ee la soo buuxinayo ama meesha lagu buuxinayo ahay soo marka qaybtan oo qaybta saddexaad ah ama muuqaalka saddexaad ah waxaan kaga jawaabaynaa qaar ka mid ah su'aalaha ku jira qaybta markaasi saddexaad oo markaasi direct questionska ah marka qaybta direct questionska laba qayb ayaan markaasi u kala qaybinay ama laba qayb ayaan ka dhignay ama laba muuqaal soo marka 10 su'aal ayuu ka kooban yahay ama qaybta directiga 10 su'aal ay ka kooban tahay 10 kan su'aal 5 kamid ah muuqaalkan ayaan ku qaada dhigi doona halka 5ta kale markaasi aan muuqaalka xigay afraad aan ku qaada dhigi doono haddii aan isla aadno shaashada computerka waxaan arkaynaa qaybtan part 3 answer all the following questions ayaa qoran waa ka jawaab dhammaan su'aalahan soo socda waxaana saaran 30 marks ama 30 darajo su'aalaha marka qaarkood ayaga ayaa si faracmayo su'aasha koowaad oo kale waxa la yiri define these terms waxaad qeexdaa erayadan soo socda a waxa la yiri waa functional group maxaa lagu qeexaa b waxa la yiri libris maxaa lagu qeexaa soo marka labadan su'aal ayaan marka hore ka jawaabaynaa waxa xusid mudan in aanan haysan bookletka 10 su'aal waa kuwana anaga marka su'aasha koobaad oo laba qayb ayaan markaasi ka jawaabaynaa marka bookletka ma haysano maadaama booklet aanan haysan new document ee markaasi aan samaysanay oo exam answerska markaasi aynu ku qornay ama jawaabaha imtixaanka markaasi aan ayaga markaasi ku qorayno sida daraadeed marka qaybtan ayaan markaasi jawaabaha su'aalaha markaasi jawaabaha halkan ayaa markaas ku qoraynaa tusaale waxaan leenahay su'aasha koowaad oo ahayd definition-ka ahayd waxaan leenahay a functional group maxaa lagu qeexaa ay ahayd waxaan leenahay markaasi functional group waxaan leenahay dhowr qaab ama dhowr qaacido ama qeexitaan ayaa markaasi jirto waxaan leenahay is the active part of organic compound waa qaybta firfircoon ee organic compound uu leeyahay that responsible for taasoo mas'uul ka ah the characteristics of the compound astaanta compound-ka ama isku dhisku uu yeelan lahaa qaybta mas'uulka ka ah waxa loo yaqaanaa functional group isla su'aasha koowaad xarafka b waxay ahayd define lipids ama ereyga lipid marka la qeexayo waxaan ku qeexaynaa marka lipid waxaan leenahay ama lipids waxaan leenahay r horta waxaan leenahay asal ahaan waa organic compound way waa organic compound this way asal ahaan waa isku dhisyo oo organic ah way that are insoluble kuwaasoo aan ku milmaynin maxay in water aan ku milmaynin biyaha kuma milmi karaan but laakiin soluble waxay ku milmi karaan in organic solvents ay ku milmi karaan milayaasha organiga ah ama asal ahaan ashyaada noolka laga keenay ay ku milmi karaan soo marka su'aasha koowaad halkaas ayaan markaasi kaga gudbaynaa su'aasha labaad ayaan markaasi aadaynaa haddii aan aadno page-yada imtixaanka oo all pages ay markaasi noogu qoran tahay oo aniga aan ku qoray su'aasha labaad oo kale waxaa qoran draw ayuu ku dhahay waxaad sawirtaa 2-methyl pentanol sabir ayuu ku dhahay 2-methyl pentanol kan ayaan sawiraynaa waa 2-methyl pentanol yani kaarboonka labaad ayaa waxaa ku dhegan methyl ayaa ku dhegan 1 hydroxyl wuxuu ku dhegan yahay kaarboonka koowaad
waana bent 5 carbon way sida daradeed marka waxaan leenahay su'aasha labaad waxaan leenahay maxay su'aasha labaad waxay ahayd driving way waxa la sawirayo waa 2 methyl 1 waa pentanol hadii markaasi aan ku noqono waa 2 methyl 1 pentanol ayaa markaasi iyadu ay tahay hadii markaasi aan eegno qaybtan waa kaasa 1 pentanol so marka iyada ayaan markaasi sawirayna oo new document meesha markaasi ugu qoran so marka qaybtan ayaa markaasi aan sawirayna oo meeshan waxa waaye hal dabar kaliya ayaa markaasi laga rabaa oo meesha dhexda waxa laga rabaa 1 ilaa wax la sawirayo waxa waaye waa 2 methyl 1 pentanol way so marka bent ayaa taala meesha 5 carbon way carbonka koobaad okay carbonka labaad 3 4 5 waa bent way all de waxa waaye all meeshan OL ayaa markaasi taalo sida daradeed marka OL waxa ku tusayo maxay OH ayaa markaasi ku tusayso way alcohol waaye alcohol functional groupkiisu waa OH sida daradeed carbonka koowaad oo waxa waaye oo hydroxylka ku dhegan laba hydrogen ayaa markaasi waa subscript carbonka labaad ayaa waxa ku dhegan ayaa markaasi leeri waa methyl so marka hal hydrogen kaliya siinayna ama laakiin kan kale ku xiga waxa siinayna laba hydrogen halka kan kale ku xiga aan siinayna laba hydrogen kan ugu dambeeya waxaan siinayna maxay 3 hydrogen ay markaasi siinayna so marka meeqa carbon atal 1 2 3 4 5 carbonkan marka ayaa waxa ku dhagaya maxay carbonkan oo markaasi ah kan labaad ayaa waxa ku dhagaya maxay wax la yiraahdo methyl carbonka labaad ayaa waxa ku dhagayo methyl so marka meeshan waxaan leenahay dabar ayaa markaasi aan u sameeynayna dabar oo macmal ayaa markaasi sameeynayna after that meeshan waxa ku dhagaya maxay methyl ayaa markaasi ku dhagaya methyl ayaa markaasi ku dhagaya so marka markii aan sabirno waa carbonka ka bilaabo 2 carbonka labaad ayaa ku dhagan methyl waxaan leenahay 2 methyl hydroxylka meesha ku dhagan waa carbonka koowaad 2 methyl 1 oo waxaan leenahay 1 2 3 4 5 pentanol so marka qaabkan ayaa markaasi loo magacaabo su'aasha labaad qaabkaas ayaa markaasi ugu gudbayna waxaan aadaynaa su'aalaha markaasi imtixaanka oo su'aasha saddexaad markaasi ah su'aasha saddexaad waxay ku leedahay draw waxaad sabirtaa the ayubag name magaca ayubag ah ee isku dhiskan markaasi uu leeyahay so marka halkan ayaan ku qoraynaa si markaasi aynu u fahanno so marka waxa aan sabirayno waxa waaye waa ayubag ahaan ayaa markaasi aan u sheegaynaa sida daradeed aan fiirino waxa horeeyo meesha waxa yaala substituent ah bromo chloro iyo methyl so marka halkan ayaa markaasi uga jawaabaynaa oo jawaabta halkan ay markaasi ka dhigaynaa carbonka labaad waxa ku dhegan bromo waxa leenahay 2 bromo ayaan markaasi leenahay 2 bromo ayaan markaasi leenahay 2 bromo ayaan markaasi leenahay kadibna 2da iyo bromoda dhexdooda waxa yaala wax la yaqaan hyben si soco carbonka saddexaad waxa ku dhegan chloro waxa leenahay 3 chloro ayaan markaasi leenahay dash haddana substituent-ga kale meesha yaala waa methyl waxa leenahay 3 waxa leenahay methyl ayaan markaasi leenahay kadibna meesha waxa yaala meeqa carbon way 1 2 3 4 5 6 waa hex way waxa yaala wax la yiraahdo hydroxyl wuxuu ku dhagan yahay carbonka maxay koowaad ayuu ku dhagan yahay sidaa daraadeed 1 ayaan markaasi leenahay hexanol ay noqonaysaa nol sababtaan u raacinayna waxa waaye yani meeshan ayaa waxa yaala wax la yiraahdo hydroxyl wuxuu ku dhagan yahay carbonka koowaad so marka halkaan ayaa markaasi aan tagaynaa meesha oo markaasi documentiga ah oo su'aalaha markaasi aynu kaga jawaabayno si aynu ugu muujino maxay su'aasha markaasi saddexaad ee aan markaasi ka jawaabayno oo jawaabaha markaasi aan ku qorno sida daradeed marka waxaan leenahay su'aasha saddexaad jawaabteedu waxa waaye waa 2 bromo 3 chloro aan dhaho aan ku noqdo 3dan labadan isma lahan 4 ayaan u maleynaa meeshan inay tahay aan fiiriyo methylka meesha uu ku dhagan yahay methylka wuxuu ku dhagan yahay aan eego 2 3 4 way so marka methylka waxa waaye waa carbonka afraad halka meeshan ay ku qoran tahay carbonka saddexaad so marka meesha waxaan leeyahay maxay 3 4 ayuu noqonaa carbonka afraad ayuu markaasi ku dhagan yahay meeshan waxay noqonaysaa 4 methyl
hexanol ay markaas noqonaysaa. qaabka loo magacaabo su-aasha saddexaadna halkaas ayaa markaas ka gudbaynaa. markan waxaan aadaynaa su-aasha afaraad ee su-aalaha imtixaanka ah. okay, aan ku noqono marka qaybta oo imtixaanka markaasi ah. qaybta imtixaanka haddii markaasi aan eegno su-aasha afaraad waxay ku leedahay what are the structural difference between DNA and RNA? waa maxay farqiga u dhexeeya DNA iyo RNA marka laga hadlayo structure ah? so marka waxa waaye waa comparing waxaan ku sameynayna waaye oo waxa qodobo markaasi aan markaasi isbarbar dhigayno oo qoraal markaasi u baahan waaye. so marka qaybtan marka aynu ka hadlayno waa muhiim in aynu fahansanaano DNA sokorta ay ka kooban tahay, RNA sokorta ay ka kooban tahay. labo waxa waaye nitrogenous spaceska DNA ay ka kooban tahay iyo nitrogenous spaceska RNA ay ka kooban tahay waa in markaasi aan ogaanaa. si qodobka saddexaad wuxuu yahay inta strand silsilad ee uu ka kooban yahay DNA iyo inta strand markaasi RNA ay ka kooban tahay waa in markaasi aan markaasi si fiican u ogaanaa. so marka waxaan leenahay su-aasha afaraad the structural difference between DNA and RNA يعني waxa way farqi u dhaxay. waxaan leenahay qodob aan u kala qaadaynaa marka waxaan leenahay the sugar that present in DNA is waxaan leenahay sokorta laga helo DNA da asal ahaan waxaa loo yaqaanaa deoxyribose, while halka deoxyribose ayaa markaas leenahay deoxyribose ayaa markaas leenahay while the sugar that present okay asi socono that present in RNA is ay tahay maxay ribose ayaa markaas lagu magacaabaa. waa qodobka koowaad. sokorta DNA da laga helo waa deoxyribose, sokorta RNA da laga helo waa maxay waxa loo yaqaano ribose ayaa loo yaqaana. qodobka xiga waxa loo yaqaanaa the nitrogenous base-ka ama nucleic acid ka dheh isku mid waaye nucleic acid ama nucleic base-ka nucleic base of DNA ayada waxa waaye DNA da nitrogenous base-ka ay leedahay waxa waaye waa adenine, waa guanine, waxa waaye cytosine iyo sidoo kale thymine ayay markaasi leedahay. bracket aan kaliya markaasi aanan loogu wareerin. nitrogenous spaceska waa afartan oo DNA ah, while halka the nitrogenous base of RNA uu yahay kaliya waxay ku kala duwan yihiin qodobkan kaliya ay markaas ku kala duwan yihiin ereygan marka aan saxno nitrogenous. so marka DNA da waa sheegnay, RNA da kaliya meesha thymine ah iyo uracil waxay ka kooban tahay marka bracket fur waxaan leenahay waxay ka kooban tahay adenine waxay kaloo ka kooban tahay maxay waxay kaloo ka kooban tahay guanine, waxay kaloo ka kooban tahay cytosine. qodobka afaraad waxa waaye waa uracil. so marka qodobka kale aan ka fiirinay waxa waaye nitrogenous spaceska. qodobka markaasi saddexaad aan ka fiirinayna waxa waaye waa strandiska ay leeyihiin. waxaan leenahay DNA haas waxay leedahay double strand ay leedahay, double stranded helix ay leedahay, while halka RNA haas ay leedahay maxay single stranded helix ay leedahay. helix hal yani waxa waaye ay markaasi leedahay. so marka su-aasha afaraadna halkan ayaa markaasi aan kaga gudbaynaa. aan aadna marka su-aasha shanaad ee su-aalaha markaasi qaybtani ah waxay markaasi leedahay, waxaan filaya inay calculation ay tahay aanoo soo muuqato. marka hore aan eegno marka waa kaasa way noo soo muuqatay. waxaa la yidhi haddii KC ay la eg tahay if the KC 1.0 uu la eg yahay qiimaha dheelitirnaanta sugan haddii ay la eg tahay maxay eber dhibic ama hal dhibic eber ay la eg tahay
carbon dioxide ne is concentration kiisu uu leeyahay 2.0 molarity, hydrogen concentration kiisu uu la mid yahay maxay 2.0 molarity, carbon monoxide uu la mid yahay maxay 1.0 molarity, waxa loo yaqaan maxay waterna uu la mid yahay 1.0 molarity. falgalka dhacayna oo qaabkan uu dhacay waxa la yiri waxaad raadisaa qiimaha Q raadi, qiimaha Q aad raadinaysaa. waxaad sidoo kale sheegaysaa reactionka dhinaca uu aaday ma reactantiga mise productiga. qaybtan hadda waxa way waa reactantiga way, qaybtan waxay noqonaysaa waa product. so waxa waaye waa markaasi muhiim in qaybtan aad haysatid. KC waan haysanaa marka mid walba ayaan markaasi qoranaynaa. waxaan leenahay su-aasha shanaad ayaan markaasi anigu aan ka jawaabaynaa. okay aan eegna marka su-aasha shanaad ayaan markaasi leenahay aan qaybta sare aan geysano. su-aasha shanaad ayaan leenahay oo KC markaasi la raadinayo. if haddii markaasi KC ay la eg tahay maxay 1.0. okay carbon dioxide na concentration kiisi ama sarayntiisi waxay la eg tahay maxay. okay carbon dioxide na concentration kiisi ama sarayntiisi waxay la eg tahay waa 2.0 molarity la eg tahay. okay waxa kale oo la siiyay maxay hydrogen concentration keeda hydrogen mar walba labadaas waa waxa waaye waa subscript way waxay la eg tahay 2.0 molarity. sidoo kale waxa la siiyay carbon monoxide concentration keedi waxa leeyahay carbon monoxide concentration keedi waxa la siiyay waa 1.0 molarity. waxa la siiyay marka sidoo kale waxa la siiyay waxa way water ayaa sidoo kale la siiyay oo waterka concentrationka biyaha waxa la siiyay concentrationka biyaha waxaana la siiyay maxay 1.0 oo molarity markaas la siiyay. waxaana loo diray waxa way waa Q ayaa markaas loo diray. waxaana loo diray waa Q iyo waxa way qiimaha yani waxa way halka markaas uu aadayo. reaction kana asal ahaan wuxuu markaasi ahaa labadan qayb ayaa falgal sameysay kadibna waxa soo baxay maxay productigan ama qaybtan ayaa falgal sameysay carbon dioxide iyo water ayaa falgal sameeyay. after that waxa soo baxay carbon dioxide iyo sidoo kale waxa soo baxay maxay qaybtan markaasi hydrogen gas. soo marka qaybtan waxa waaye waa reactantiga way halka qaybtan wixii ka horeeyana ay markaasi tahay productiga ay markaasi tahay. soo marka iyada markaan ka hadlaynay marka aan raadinayno asal ahaan Q waxa lagu helaa asal ahaan productiga qiimaha concentrationka oo productiga okay concentrationka oo productiga oo markaasi loo qeybiyay concentrationka oo reactantiga markaasi loo qeybiyay iyo markaasi lagu hela. soo marka yaa product markaasi noqonayo product waxa noqonayo carbon dioxide iyo sidoo kale hydrogen gas. concentration called carbon dioxide waxa waaye waa laba waaye, hydrogen gasna waxa waaye waa laba iyada. qaybtan waa product ama laakiin carbon monoxide concentration keedi oo hal ah iyo sidoo kale water oo concentration keedi hal ah ayada waxa waaye waa reactant hooseeya ee noqonaya. soo marka labadan tiro marka la isku dhufto oo carbon dioxide ka iyo sidoo kale hydrogen maadaama qaybta productiga ay yihiin waxay markaasi noqonayaan qaybta maxay productiga ay noqonayaan. soo marka Q waxa lagu helaa qiimaha Q-da waxa lagu helaa productiga marka maxaan haysanaa waxa leenahay waxa lagu helaa concentrationka oo carbon dioxide-ka oo ku dhacsan concentrationka oo maxay hydrogen gas-ka concentrationka oo hydrogen gas-ka kadibna loo qeybiyay waxa loo qeybinaa maxay reactantiga reactantiga waxa way waa concentrationka carbon monoxide concentrationka oo carbon monoxide ah oo ayada markaasi ku dhufsan concentrationka oo markaasi waterka ah. okay concentrationka oo waterka markaasi ah ku dhufsan. okay concentrationka oo waterka markaasi ku dhufsan. okay soo marka mid walba qiimaheeda aan ku bedelanaynaa marka waxa leenahay Q waxa lagu helaa concentrationka oo carbon dioxide waxaan haysanaa waa 2. soo marka waxaan leenahay bracket aan furno 2 times
laba lagu dhuftay haye concentrationka oo maxay hydrogen waa imisa concentrationka oo hydrogen isaguna waa labo soo marka waxaan leenahay labo waxa way lagu dhuftay laba iyo markaas noqonaysa qaybtan waanu ka dhamaanay marka waxay noo soo haray qaybta divide-ka loo qeybiyay iyo markaas leenahay loo qeybiyay waxa loo qeybinaa carbon monoxide ee concentrationkeeda iyo water concentrationkeeda oo la isku dhuftay carbon monoxide concentrationkeedu waa 1 soo marka bracket for 1 times iyo markaas leenahay okay bracketka marka waxa leenahay 1 times iyo markaas leenahay concentration oo waterna meeqa way concentration oo waterna waxa way waa 1.0 ama waa 1 soo marka 1 ayaa markaas leenahay bracketka soo marka qiimaha Q waxa markaas lagu helaa qaybta sare waxa inoo soo baxday labadan tiro marka la isku dhufto waxa soo baxday waa 4 loo qeybiyay waxay noqonaysaa 4 loo qeybiyay hal marka hal lagu dhufto waa hal soo marka 4 loo qeybiyay hal ay noqonaysaa sidaas daraadeed 4 hadii hal loo qeybiyana waxa way waa 4 soo marka natiijada aan helnay waa 4 sidaas daraadeed marka qiimaha Q waxaan helnay 4 ayaan markaas helnay Q waxay la eg tahay 4 ay la eg tahay sidaan soo saarnay KC-ne qiimaheedii waxa uu markaas la ekaa 1.0 soo marka labadoodii ayaa waxa lagu sameynaa maxay comparing sida markaas aynu wada ognahay labadan qiimo waxa badan waa wax loo yaqaan Q soo marka meeshan qiimaha Q-ga ah wuxuu ka badan yahay hadii markaas aan eegno wuxuu ka badan yahay qaybta markaas loo yaqaan KCD iyo markaas ay ka badan tahay sida daraadeed waxa leenahay Q is greater than waxay ka weyn tahay soo marka waa isticmaali kartaa maxay KC way ka sareysaa maadaama marka xeer waxa jiray hadii qiimaha KC iyo qiimaha quotient-ga ama Q-da ay badan tahay reaction-ka wuxuu aadaa dhanka reactant-ga oo wuxuu aadaa dhanka iyo left-ga iyo markaas aadaa maadaama marka Q-da ay ka badan tahay KC waxaan leenahay the reaction falgalka shift wuxuu markaasi aadaa left dhanka markaasi bidix ayuu aadaa oo ah toward dhanka iyo maxay reactant-ga iyo markaasi aadaa toward reactant dhanka oo wuxuu aadaa maxay reactant-ga iyo markaasi aadaa oo dhankaasi markaas u badanaa way oo qaybta reactant-ga ama product-ga waa markaasi hadeertan uu ku badan yahay way waxaan filaa marka in qaybtan si fiican loo fahmay intaynu ku soo gabagabeynayna qaybtan intaynu ku kulmi doono qaybtan qayb la mid ahna waxaan idin kaga tagayaa siday nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh